مهمة وإسلا تربية قيب كم بدا قفكو إنو هلو استقلال الفكر والعقل إنو هلو markuu rabbi weyne ku xidhan yahay haddana isagoo ku xidhan baa laga yaabaa istiqlaalul fikri inuu waayo maxaa looga jeedaa qofkan inuuna noqonin qof dad u xidhan munadamo gaar ah cid u xidhan institution gaar ah cid xisbi gaar ah cid u xidhan inuunan qofkani ahayn qofkan waa inuu yahay qof mustaqil fikirkiisa uu inuu yahay qof lala niqaashami karayo xataa bini aadamka ee ilaahay markuu rasuulka soo diray dadku waxay mustaqil iyo xor u ahaayeen inay xataa ilaahay la doodaan وكان إلهي له قل هاتوا برهانكم وربل إذنكم كان هذا برهانتين إيو واحد وضعتان ما لا إلهي كما وران ما إلهي بل دودي سان سيدات إلهي ولا دودي كريسان أو دود الله ما حد والله ما ورانين سيدات لو جوابي ما إلهي بين إنه حلقة يابا قف علماء اللي يهادو قف كاس وجاهل هبا وجواب أما ضدك الجهال ذا حلا حلا دودين علشان هذه دودا يكون كينان وده وحلا يسوق بصداي وحسابا ومنهج القرآن كجبي أهانتي سوى له وعدي مركز عليرتنا مركز أساسه كلا الله ديارنا يلو ديارنا يبشوا وحكي بدلان وحنارك إننا مرمرك قار الله ديارنا يلاليرتا إن النقدان قوة عدة أي كحوليه فكر كيس وموين إيه أنت وآمسين يا موين أو وضك لما ركرين مركز فكر كاجي سداس لوحة نبوحة مقنع سقف كجرا قفصي أو كله شنبرت وتجارنا إنسان بول كذا يرق قف كجرا هدول دبده وصبح عدة وضح لي كراني عدة وحكنا عن كريه عدة وشيء كرمجر dadka fikirkaaga xambaarsani way yar yihiin caamatu naas iyo ra'yul caam iyo bulshadii kale oo dhani banaanka ayay joogaan marka fikradan aad weeyay cid xambaarsanta way yar tahay marka cidaas hadii ay ku tiraado anigu waxaan aaminsanahay aamin wax kalena kaama maqli karay waxa ka dhigan tahay xabsi fikri ah ayaad ku jirtaa qofkaas wuxuu ku jiraa xabsi fikri ah marka qofku waa in fikradiisa uu xor u yahay qofku sida bini aadamka Ilaahay xor uga dhigay afkaartiisa iyo habka uu wax u aqligiisa iyo habka asagu u fikrayo iyo istinbaadkiisa iyo fahankiisa waa inuu xor u yahay laakiin isagu waa inuu ogolaadaan in niqaash u jiri karayo in lala doodi karayo qofkaas in lala doodi karo wax la weydiin karo la wada doodi karayo marka qofku uu inta helo ibdaac uu sameeynaya hal abuur buu qofka sameeynaya isaga wax abuuraya isaga hal abuur sameeynaya waxyaabahaas oo kale ayaa markaa imaanaya laakiin hadii meel lagu koobo qofku wax uu sameyn karayo male waayo wax kasta waxa miisaan u ah hebel muxuu ka aaminsan yahay hebel sidoo u arkaa sidoo iga falcelinayaan cidii aan ka tirsanaa siday sameynaysaa maxaa la iigu jawaabaya ayuu qof marka meel looma socon karayo qof wuxuu mar walba ku fikirayaa wax la fahmi karo oo dadkan la joogay iyo dadkan la nidaamkii wax ay fahmi karaan inuu ku hadlo hadduu wax kale ku hadlo cabsi buu ka qabaa marka qof fikrad xambaari kara ma bulshaduna waa dad kala duwan weeyaan kala fikir duwan kala aqli duwan kala aragti duwan kala khibrad duwan laakiin mar walba marka aad cid ka tirsan tahay institution iyo nidaam iyo urur xataa aad ku jirtid waxa markasta dadka ka agdhow waa dad aad 100% isku fikirtiin sidaa darteed haddaad ku jirto sanduuqada yar aad ku jirto waxa adkaanaysa inaad bulshadii aad wax u sheegi karaysid way adkaanaysaa sababtoo markaad bulshadii aad soo baxday ee aad in yar oo garanaysa oo sheegistiraado afkaar kale oo fara badan ba ka hor iman taas oo sababaysa inuu marka dambe qofku noqdo qof muxuu ahaa tacasub badan leh qof fikirkiisa uu ku dhagan qof aan waxba loo sheegi kareynin inuu marka dambe qofku noqdo ayaa ka dhalanaysa